صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 صوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبين وناكسن رمضان الكريم أنفر وناكسن داود يا شاقين ميجا يقدرين تايجا مدن يكوحرن برتن عالميجا يقرأ رمضان مبارك إلهي سبحانه وتعالى هنجا قبل صومك عبادة بشن رمضان أي ندال نول على عيال كسر هذا مقال عصب وقت والبيع كوتاي وحن كل يحي نال البجوك وقتها قوة عناده أنه عاوة هبين بهذا ينوجوكتا أنفر بين أنفرني هبين ونكسن سداد الدنتهين صومالي إيد الكيت إدمان المسلمين إلهي سبحانه وتعالى رمضان كان رمضان كيسة أنه قاسيو نبات بش برواقو إيا عافمات حتى عاوة وحينو كهل دونا مقال كدون مقال ذي سداد هرو وركتان ببيش وحن سودك جرني أما يوتيوب كان وحن سودك جرني قصوين كلا دوان أو لا حريرة دونيدان وحيابها كدع هدي أهال لهاد ماديا تاريخ قفعانا أما حنقول هذا سيابك كلا دوان إنه كجسوه اللي جرني بس أنت بشر رمضان إن كوجود جرنا إن شاء الله تعالى وحن حوك صار دونا إن السؤال الدينية سويدين تودا ويديما عن صوت يارنا يولي بقصوين كتعلق دينتا mar walba waa inaan xasuusnaa diinteeda waa wax wanaagsan laakiin bishan Ramadan ma ku sii jirto waayo waa bishii barakeysnaad waa bishii naxariista iyo maxaan ku raadaay badbaadada iyo maxaan ku raadaay nasteexada inta laga heli lahaa caawa waxaynu ka hadlaynaa qiso yar oo gaaban oo aan kaga soo diyaariyay mid ka mid ah ciwaanka sidaad ka arkaysaan suuradaha quraanka kariimka ah fadliga ay leedahay suuratu tabaarik أما سورة الملك قصير يحدث عن سوق هذا دونا إن شاء الله تعالى كده بنوسوق بجبين دونا إلى سوق هذا يجناك مركزي كبور سيتاين فضلا سبسكرايب صار أصحاب هذا اللي وداك سي وفايدستان قصة عن كروح لبضان له وان كله وداك دونا يا رمضان سلام مرحبا شعب المسلمين رحب منتظرين بنترحب سابنا صيامنا ونلعب قصده wuxuu dhacay saasada waxa geeriyootay habeenay wanaag badan oo cibaadada alle ku dadaasha markay dhimatay oo la aasay kadib cid kasta oo qabrigeedii soo agmarta waxa ay dareemi jirtay udug aad u udgoon haweeneyda markii la duugay qabrigeeda ama burdeeda qof walba ee soo agmarta waxa ay dareemisay caraf fara badan waxa ay dareemisay udgoon fara badan waxa ay dareemisay qabrigaasi caraf ka soo baxaysa qof walba ee soo agmarta dadkii ayaa la yaabay udgoonka ka soo baxaya burda ama qabriga ee haweeneydaasi ku dugneed markii sheekadii magaaladii iyo wadankii ay wada gaartay ayaa waxa loo yimid ninkii haweeneyda qabay ay ka dhimatay kadib waxa la weydiiyay xaaskaagu maxay sameyn jirtay xaaskaaga qabrigeeda markii la soo agmaro caraftaas ka soo baxaysay war walaalow noo sheeg xaaskaagu maxay qaban jirtay ninkii oo yaaban ayaa ku jawaabay ama yiri wax sida u weyn meesha sameyn jiray balse salaada way dukan jirtay way soomi jirtay habeen walba markii ay saaxanaysana waxay akhrisan jirtay suuratul mulk ama suuratu tabaarik intaas oo intaas ay qaban jirtay wax kale meesha sameyn jiray dadkii halkaas ay ka garteen haweeneyda waxa ay darajadaasi ama carafkaasi ku gaartay waxa jira xadiis laga wariyay rasuulkeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa Allah ka yeela oo yiri qofkii akhriya habeen walba suuratul mulk ama suuratu tabaarik ilaahay wuxuu ka badbaadiyaa cadaabta qabriga alxamdulillah qof walba ee jiifanaya habeenkii markii uu akhriyo habeen walba suuratul mulk ama suuratu tabaarik ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu ka badbaadiyaa cadaabul qabri ama markii aad dhimato Soomaalidu waxay tiraahdaa qabriga Allah u nuuriyo qabriga Allah waasiciyo su'aasha Allah u fududeeyo intaas oo dhan oo rafaada ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ka badbaadinaya sida laga wariyay xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadaba walaal aynu ku dadaalno akhrinta quraanka kariimka ah xilli kasta khaasatan suuratu tabaarik habeenkii markii aynu jiifanayno dhinaca dhulka aynu la helno ta shaydaanka iska rajeemino aynu akhrino suuratul
tabaarik ama suuratul mulki. La wadaag walaalkaaga qaaliga ah, la wadaag walaashaada qaaliga ah, la wadaag asxaabtaada dhammaan meel walboo joogto. ramadaan kariim, ramadaan mubaarak. ilaahay subxaanahu watacaala ramadaankiisa nagu gaarsiiyo nabad iyo caafimaad. ilaahay subxaanahu watacaala ha naga aqbalo cibaadada aynu cibaadaysanayno, baryada ilaahay aynu baryayna aan badinno. ilaahay subxaanahu watacaalana dembi dhaaf ay nooga dhigo ramadaankan fadligiisana. ilaahay subxaanahu watacaala cudurradan iyo xaaladan amni xume iska jirto ilaahay subxaanahu watacaala ha naga wiciyo. tani muuqaal xiga intaynu ku kulmi doonno waa anigoo ah Barre Ismaaciil oo idinkaga tegaya ismaqal aragti dambe oo xiiso badan.